kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaada daawadayaal warbixinaynu ku eegayno wararkii u dambeeyey xaaladda dalka Itoobiya iyo dagaalada ka soconaya waqooyiga. warbixinteennan daawadayaal hadduu allaydno waxaad ku maqli doontaan guud ahaanba wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee ka soconaya deegaanka axmaarada ee dalka Itoobiya. qodobada ugu muhiimsan ee aynu dul istaagi doonana waxaa ka mid noqon doona ciidamada militariga Itoobiya ayaa guula ka sheegtay dagaalo xooggan oo maanta ka dhacaya buuraha Zobel oo ku yaala deegaanka axmaarada isla markaasina u dhow xadka ay wadaagaan axmaarada iyo canfarta. sidoo kale militariga Itoobiya waxay sheegeen in ay kala jareen wadada isku xidha magaalada Maqala iyo Waldiya, taasi oo ay sheegeen inay ka dhigan tahay in ay go'doomiyeen xogaga Tigreega ku sugan gudaha deegaanka axmaarada. dawladda guulo badan ayay ka sheegatay halka Tigreeguna dhinacooda iyaguna ay guulo sheegteen isla markaasina ay ku hanjabeen inay sii wadayaan dagaalada ay ka wadaan waqooyiga dalka Itoobiya. qodobadaasi iyo weliba kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan warkeenna hadduu allaydno. taariikhdu waa 12 bisha 12aad 2021 waana axad. ku soo dhowaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno. haddii ugu horreynba daawadayaal aynu ku bilowno dagaalo xooggan ayaa weli ka sii soconaya deegaano badan oo ka tirsan gobolka canfarta ee dalkaas Itoobiya. dagaaladani oo ah kuwa lagu hoobtay isla markaasina si weyn loogu riiqmay ayaa militariga Itoobiya waxay ka gaadheen guulo aad u xooggan labadii toddobaad ee u dambeeyey kadib markii ay jabiyeen xogaga Tigreega oo isku dayay in ay u socdaan dhinaca magaalada Addis Ababa si ay meesha uga tuuraan xukunka uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa jiida hore ee dagaalka ku sugnaa 2 toddobaad, waxaana la sheegay in Abiy Ahmed sababaha uu uga soo laabtay jiida hore ay ka mid tahay in la ogaaday in Tigreega iyo weliba xulufo reer galbeed oo Tigreega taageeraysa ay isku dayayaan in la xaqiijiyo dhinacyada ama deegaanada Abiy Ahmed iyo ciidamada uu la socdo ay ka howlgalayaan. dawladda Mareykanka oo lagu eedeynayo in xogaga Tigreega waxyaabo badan ay ka saacidayso ayaa gacmeedyadeeda dhowaanta waxa ay warar kala duwan iyo weliba sawiro ay ka qaadeen meelo lagu diriiray iyo meelo diyaarado laga keenay dibadda dawladda Itoobiya lagu caawinayay lagu soo ururinayay oo u dhow magaalada Addis Ababa. diyaarado la sheegay in drones yihiin meelo kala duwanna laga keenay ayaa dawladda Imaaraadka oo lagu eedeeyay in iyadu ay qandaraaskaasi qaadatay in la soo ururiyo hubka iyo diyaaradaha dagaalka ee lagu caawinayo dawladda Abiy Ahmed. waxa uu sheegay gacmeed laga leeyahay Mareykanka in meel u dhow magaalada Addis Ababa laga soo dejinayay diyaaradaha wada agabka loogu talagalay ciidamada dawladda. sidaas darteed iyadoo dawladda Itoobiya ay Mareykanka ku eedeynaysa in si weyn ay Tigreega u garab taagan tahay ayaa haddana la sheegay in ay meesha soo gashay cabsi ku aadan in Abiy Ahmed khatar uu kula kulmi karo jiida hore ee dagaalka. waana mid sababtay Abiy Ahmed iyadoo magaalooyin badan oo waaweyn weli gacanta ay ugu jiraan xogaga Tigreega in uu dib ugu laabto xafiiskiisa magaalada Addis Ababa. inkastoo asagu arrintaasi uusan sheegin, haddana warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegay in uu jiro isku day la doonayay in lagu xaqiijiyo goobta Abiy Ahmed oo ku sugnaa. si kastaba ciidamada dawladda ayaa howlgalladii iyo dagaaladii xoogganaa sii wada, waxayna ilaa iyo hadda ku soo waramayaan in guulo waaweyn ay ka gaadheen dagaaladii u dambeeyey ee maanta, iyada oo ciidamada militariga Itoobiya ay sheegeen in ay qabsadeen buuraha istiraatiijiga ah ee Zobel. waxayna sheegeen ciidamadu in halkaasi oo dagaalo aad u khalaad maanta ay kula galeen xogaga Tigreega kadibna markii dagaaladu aad ay u cuslaadeen ciidamada qoomiyadda canfarta qaybahooda kala duwan kuwa axmaarada militariga iyo weliba diyaaradaha dagaalka halkaasi la isugu geeyay buurahani oo ah kuwa istiraatiijiya una muuqday in ay Tigreegu u qorshaysteen inaan dhaqsan laga saarin amaba aan weligood laga saarin ayaa maanta la sheegay markii awood xad dhaaf ah la isugu geeyay in laga saaray khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac iyo burburna uu ka dhashay dagaaladaasi sida weyn la isugu hoobtay. waxaa isugu tagay ciidamo aad u tiro badan oo meelo kala duwan ka yimid buurahani oo ah kuwa hawd ah dhul qarun ana ku yaala oo in badan ay Tigreegu qorsheeyeen inay ku qarsoonaadaan ayna ka dagaalamaan ayaa u muuqda sida ciidamada dawladdu ay sheegeen in aysan ku jirin oo laga saaray ayna la wareegeen ciidamada xulufada ah ee militariga uu hogaaminayo. sidoo kale ciidamada dawladda ayaa waxay sheegeen in ay qabsadeen buuraha iyagana lagu magacaabo
magacaabo ambasel iyo sodamo kuwaasi oo ka mid a iyaguna isla deegaanka axmaarada una dhow kuwa kan ee zabal lagu magacaabo dhulkan ayaa ciidamada dowladdu ay sheegeen in ay weeraro saf ballaadhan ah ku qaadeen kadibna ay ka qabsadeen intii ugu badnayd oo ka mid ah ciidamada tigreega oo sheegeen in ay ku dhuumaalaysanayeen iyada oo sidoo kale ciidamada dowladdu ay sheegeen in ay kala jareen wadada isku xidhaysay magaalada wadhiya iyo sidoo kale maqala oo ah caasimada gobolka tigreega ciidamada militariga Itoobiya dagaalada xooggan maanta kula jira xoogagga tigreega ayaa waxay sheegeen in si rasmi ay u go'doomiyeen xoogagga tigreega ee ku sugan deegaanka axmaarada gaar ahaan ciidamada ku sugan magaalada wadhiya iyo agagaarkeeda kuwaasi oo wadada u furan ay ahayd midan ciidamada dowladdu ay sheegayaan in ay qabsadeen ciidamadaasi ayaa militarigu ay sheegeen inay sidaasi go'doon ay ugu yihiin dibna aysan u heli doonin meel ay maraan inkasta oo ciidamo ay yihiin oo laga yaabo in ay dagaalamaan khasaare haba ka dhasha dagaalka ayna barnaystaan jidka balse ciidamada dowladdu waxay sheegeen inay go'doomin rasmi ay ku sameeyeen kadib markay qabsadeen jidkii weynaa ee dhinaca magaalada maqala waxna uu uga iman jiray haddii xaaladdu ay ku adkaatana ay ku carari lahaayeen ciidamadan ayaa dowladdu ay ugu baaqeen in ay isa soo dhiibaan inta iyaga oo noolnool qadaadka aan la soo qaban amaba aysan ku dhimanin dagaalada xooggan ee ciidamada dowladdu ay ka wadaan deegaanadaasi si kastaba ciidamada militariga Itoobiya oo aad u tiro badan mar walbana lagu soo daro ciidamo hor leh oo tababar ka soo qalin jabiyay ayaa amar lagu siiyay in xoogagga tigreega ay gaarsiiyaan xuduudka ay wadaagaan axmaarada canfarta iyo tigreega isla markaasina shakhsi ka mid ah ciidamada TDF ee tigreega aan lagu arkin gebi ahaanba deegaanada ay mar dhulka badan ka haysteen canfarta iyo axmaarada inkastoo tigreegu ay dagaalamayaan isla markaasina ay maalmahanba ku hanjabayeen in ay qaadayaan howlgal aad u ballaaran oo ay doonayaan in dagaalkooda ay ku sii wadaan ilaa iyo Addis Ababa ay soconayaan haddana waxay la kulmayaan dagaallo aad u xooggan taa beddelkeeda xoogagga tigreega TDF maanta waxay qabsadeen oo la xaqiijiyay magaalada istiraatiijiga ah ee Gaashaane magaaladani oo mid aad u muhiim ah isla markaasina ka tirsan deegaanka axmaarada ayaa labada dhinacba ay aad ugu mintidayeen in mid walba asagu gacanta ku hayo dhowr mar oo hore ayaana magaalada dagaallo lagu kala qabsaday sida aad wararkeennii horeba ku maqlayseen waa markii shanaad ee magaaladaasi dhinac ka mid ah kuwa dagaalamaya ay gacanta ku dhigaan waxaana maanta magaaladani qabsaday xoogagga tigreega waa magaalo istiraatiiji ah oo aad u muhiim ah qolo walbana ay aad ugu mintidayso in iyadu ay haysato waxaase la fahmi la'yahay ciidamada dowladda awoodda badan leh isla markaasina aadka u baacsanaya xoogagga tigreega sababta looga qabsaday magaaladii ugu muhiimsanayd gebi ahaanba dhulka hadda dagaaladu ay ka socdaan ee ka tirsan deegaanka axmaarada xoogagga tigreegu waxay sheegayaan in horay ay u sii wadayaan howlgalladooda si ay ugu dambayn u gaaraan ujeedkooda ah in ay meesha ka tuuraan xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayna magaalada Addis Ababa ku siisiqaan si kastaba dowladdu ma aysan ka hadlin guulaha xoogagga tigreegu ay ka sheegteen ee ku aadan inta ugu badan qabsashada magaalada maqala sidoo kale tigreega ayaan iyaguna ka hadlin guulaha ciidamada dowladdu ay ka gaareen ee ay sheegeen inay ku qabsadeen buuraha Zabal iyo waliba buuro kale iyo dhul muhiim ah iyo in ay kala xidheen magaalada Waldiya iyo sidoo kale maqala oo muhiim u ahayd ciidamada tigreega ee dhulkaasi lagu dirirayo ku sugan dhinaca kale daawadayaal sawirkan idin muuqanaya waa gabadh wariye ah oo ka shaqeysa warbaahin laga leeyahay dalka Itoobiya waxaa la sheegay gabadhani wariyaha in lagu magacaabo Mayza Maxamed waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada dawladda ay xabsiga dhigeen gabadhani oo ka shaqeynaysay warbaahinta lagu magacaabo Abay ayaa laba askari oo dhar cad gurigeeda ay ka kaxaysteen sida familkeeda ay sheegeen gabadhani ayaa baryihii dambe aad waxa ay u dhaliili jirtay xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaana la sheego lagu eedeynayaa in baraheeda bulshada ay gelin jirtay qoraallo dawladda ay ku dhaliilayso taasi oo aan hadda ogolayn sharciga dalka Itoobiya maadaama dalka Itoobiya ay ka jirto xaalad degdeg ah aanana la aqbalaynin wax kasta oo dawladda liddi ku ah ayaa la sheegay in ay tahay sababta gabadhani wariyaha ah jeelka loogu taxaabay ma fahantay dadkuna marka waxaan kaloo doonayaa inaan ka hadalno ninka la yiraahdo Baaja Dabale oo asaguna hadlay Baaja Dabale wuu hadlay tigreegana aad buu u caayay oo waliba waxyaabo badan buu sheegay oo waa daanyeer buu yiraahday waana sargaal sare oo ciidamada militariga ka mid ah bal muxuu sheegay ninkaasi oo maxaa hadaladiisa laga qaadan karaa
horta aan ka dhaxgalay ninkii la yiraahdo baasha dabale axmaaradu waxay u yaqaanaan beenaalihii dagaalka macnaha asaga markii guul la sheegay unbaa la arkaa oo soo baxaa haye weli waxaa la sheegay markii dagaaladu ay magaalada dhisa inuu joogay markii Tigreegu ay qabsanayeen oo uu soo cararay oo cararkii Addis Ababa ku soo galay warkaas sugan asaga waxaa la yiraahdaa markii wax la haysanayay ama markii guul la sheego nima hadda ka hor waxaa laga sheegayay unfa maalin walba kuma hawlaha la yiri nina dagaal gala markii dagaalka la galo wuxuu galaa la yiri god unfo marka la soo laabto wuxuu yiraahdaa maalintan baan in arkay asagoo god unfa ku jira suu yiri maalintii dambe niyowna aan dagaalka aadna suu yiri saaxiib raalle ahow unfa maalin walba kuma hawlaa god kuu qodi meydee macnaha ninkaani waa isku dubaridaha ciidamada Ethiopia Baja Dabale haddana waa nin comedian ah oo laga shactiraysto oo aan runta aqoon waana nin Oromaa waana nin Tigreegu hadda ka hor inta qabteen ay xirxireen waana nin taliye u ah ciidamada dhinaca galbeedka Ethiopia kuwii looran jiray waa la burburiyey oo xadka Ethiopia iyo Tigreega Badame iyo Antigreed iyo Salambasa intii laga difaaci jiray wuxuu ka ahaa taliye marka waagii dambe taldhiga la burburiyo Addis Ababa yimid halkaana marka waxa laga dhigay inuu yahay isku duwaridaha amaanduulaha ciidamada Baasha Dabale wuxuu sheegay marka shalay meel uu ka qudbaynay wuxuu yiri asagoo bootaynaya waa taqaana asagaaba daanyeera markaad fiirido sida uu nimanka uga hadlayay markaan dhageystay wuxuu yiri nimankaan ma yaqaanaan raashinka intay cunaan maana inta kale waa daadiyaan wuxuu yiri musqusha marka ay galaan iyo guriga ay seexdaan kale ma yaqaanaan wuxuu yiri waa cawaan waa hadda kolley intuu sheegayo anagu waxaan leenahay waaba run ma fahantay maxaan ugu rumaynaynaa nimanka inta dagaalamaya wadanka intaasoo sano soo xukumay sayn u kala garanayeen musqusha iyo halkay seexdaan annaga waxaan u rumaynayaa macnaha aniga ahaan ra'yigayga aniga axmaare iyo Tigreeg waa isugu kay mid sababtoo ah waa dameer iyo labadiisa dhagood inaan dameer leen raahno tanna waa caddahay tanna waa madowdahay كل ولا قفي عيال لا ما وحي سحناشة موقضة وحي سحناشة أوين نقادنا إنه نقول أي حنين صح واي ورنتا أنت أسكفتم بهاي النقطة مركا سيدا سويري نكل يرى باجة دبلا وعير تكره وضد عوانا وضد عيارا وضد ماشي جيفتان كوكادي وان أف وحو قري وحا سيداسا واننا أمان دولا وحو يرى حكمنا إنه مقالا انتقينا ما فهمت تاين بدن بوشاقة هاي ها وليس مقالو السعودية هذا كور مران دقيستي وكهد لا يمال مقالاك تيدا ووحو لهاي تقريقا وحانو شيري إن شعب كودا انتا يسان قبسان مقالة مقالة وحا بنانك هاوسو بحين دادك الدونتاقا اي كوهيان كالكلا حسوا سارين مركا واحد مودا اجيد ان كجيدو اناي ماشو ولي اي كسعوتو سيدو ارمو اي موقدان كلغين واودا ارقنا مركا ايتوبيا ارنتيدو وافان نولا فريكما قدنا كل هذا ارمي ودنبي waxay ahaayeen qabsashada magaalada gashaana halkaas aan ka dhaxgalo arrimii u dambeeyay inuu iska soo ururin saddex meelood baa la sheegay in maanta dagaalo xoogan ay ka dhaceen dhinaca buuraha Zobel iyo magaalo ku taala oo ay dagaalo xoogan ka dhaceen waliba ciidamada sheegay inay ka soo talaabeen dhinaca deegaanka Canfarta oo military iyo ciidamo kale oo Axmaari iyo Canfar bay isugu jira dagaalka ay qayb ka yihiin sida dadka qaar ay sheegayaan meelo kale oo iyagana lagu meelo kale oo magaalada Marso iyo Wayka ayagana dagaalaha ka dhacay magaalada la yiraahdo gaashaanana waa kan la sheegay in Tigreegu qabsadeen marka Tigreeguna waxay maalmahan sheegayeen in dagaalo laba kacleyn ay qaadayaan marka in ay soo laba kacleeyeen oo magaalada gaashaano istiraatiiji ahayd dawladana ciyaar aan gacanteeda in kaga baxdo yaani aan la suweynin hadda ayagu ay qabsadeen in awood ay la soo baxeen oo dagaalo laba kacleyn ay qarxeen ma u muuqataa waa dhici kartaa nimankaani waxay ku dheereeyeen dagaalka gurilaha ah sababtoo ah nimankan markii uu Abiy dagaalka soo galay ciidamada Ethiopia
ayaa waxay ahaayeen weerar nin weerara iyo nin difaac ku jira badanaa ninka weerarka ku jira ayaa maaragtay khasaaro badan geysanaya oo ninka difaaca ku jira marka hadda waxaad moodaa in Etoobiyaanka ciidamadoodu ay hadda difaac yihiin weerarkan labaadoo rogaal celiskaana Tigreegu ay soo galeen waana wadadii ay soo mareen waxayna sheegeen inay uga baxeen magaalooyinka inay isticmaalayaan kaartadii 91dii ahayd markii ay Mangiste Haile Mariam ka saarayeen Ethiopia barta hadda ay ka laabteen ma fahamtay marka sida ay ku andacoonayaan waaye waxay leeyihiin dadkooda marka qabsaday Tigreega waxay dheen maxaad noogu sheegi weydeen waxay dheen waa arrimo militariyan u soo baxnay khasaarana gaaray jabkooda ma aysan qarsan marka arrimuhu si kastaba ahaadeen dagaalka hadda ka soo cusboonaaday Gashaana iyo Soobil iyo meesha la yiraahdo Marsa iyo Wajaale waxay noqon kartaa in Tigreegu ay mar labaad soo rogaal celiyeen sababtoo ah haddii aan gobolka Tigreega gudihiisa la isla gelin oo aan horay uusan u sii socon Etoobiyaanku waxaad moodaa in ay Tigreegu ayagu hadda soo rogaal celinayaan marka arrimaha Ethiopia waxaad moodaa inay faraha ka baxeen diblomaasi ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan Tigreeguna waxay aaminsan yihiin sidoodaba inay dhintaan sababtoo wax ka dambeeya ma lahan dadkoodii way baaba'een waxay u dhinteen baahi geed kaama xageeyo sidooda ay ku jiraan marka bal wixii soo kordha waan arki doonaa wax kala su'aalaha okay aad iyo aad waan iska soo gabagabaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Bashiir Xaashi Yuusuf oo awariye madax bannaan isla markaasina marar kala duwan in la wadaaga xogihii u dambeeyay dalka Itoobiya iyo falanqeyno ku saabsan Bashiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay saaxiib alaan mudan hayo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh